munaasabaddan lagu soo dhaweynayay qurbo-joogga Somaliland ee ku dhaqan wadamada caalamka ayaa habeenkii xalay lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaana ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada shirgudoonka baarlamaanka iyo xildhibaano Cabdullaahi Salaman Biddo oo kamid ah qurbo-joogtii lagu maamusay munaasabaddan ayaa sheegay in xukuumadda ay uga mahad celinayaan munaasabaddan soo dhaweynta ah ee loo sameeyay waxaan u soo jeedinayaa mahad anigu ku hadlayo magaca qurbo-joogga ama qurbo-joogga Somaliland caawa hadda qurbo-joogga waxaan leeyahay aad u mahadsantihiin bilcirsan sida quruxda badanna loo soo habeeyey ee habmaamuuskeedu heerka sare yahay iyo soo dhaweynteeda xubno wasiir ah gudoomiyaha xisbiga talada haya kulmiye Muuse Bixi Cabdi iyo Baashe Maxamed Faarax oo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada ayaa sheegay in qurbo-joogtu ay kaalin muuqata ku leeyihiin horumarka Somaliland madaxtooyada Somaliland ayaa waxay sanad kasta munaasabad oo kale u sameeysaa qurbo-joogta xilliyada ay ku soo laabtaan Somaliland Khalid Xabsi Kalsan TV Hargeysa.